كارك تلقى كوباس تسودو مدحوين قرب صار دب وخلقه أي حال كان يتنسي أو كهرو كلا دجان كان بحر أورو كانوا حقتها حول بدن وحي على ينبض وحق لي وحق صوب ومرة يوم أنا شرعي هاي نوع دون بحر وحق لي كقيب كان حول بدن واحد دبل جليل مركاي كستو حول بدن قال مقيا وخلق أورو وحاجة تنسي تنسي صليك هو دارس على كلامه وحد سوي بديه قرب البلد جوجا يا كستي يبي هذا الحياة وديين بس أنا كلام كيف أساس صار كيف استان وايو يعني لواتن أصبح وضع دعنا زيروجا أصبح وضع دعنا بس برضو كتسمي يبلون
ما ينسلاتهم مريا ما ينسلاتهم مريا كاسوا bileegi kaas kalluunkii oo fileta marka lagu gooyo ay dumar ka shaqeeyaan weeyaan sidoo حفلتنا قلنا بدل ما تسوون لنا ودعفرك أما حركة جريدة مشروعة لقية سيركو كامباني وأنا مشروع لقد دياري عمل لقى قريب دمنا الرقية وقتنا وقوبنا أولي ونسيطة صغيرة حلالي إن شاء الله تعالى كفر بها وحن قعد صليا أنا وسيلة ولا صياح الله أسرة قوية صلاة الجمعة إن عيسو وحن مفوض صليا يا شيخ مسلم يوسف والنقود على آيات القرآن الكريم كأسفل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله عليها قداميها تلمذة الضحية مولاي عبد الله علي النور سعودو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة الأول وحنا نلقى السلام يا مدحوين كبير جمهورية الصوماليلاند وحنا الله سعودو مدحوين بالمدادي وبالمدي الوهية هذه أكبر سعودوين. نلقى الله وحنا السلام يا ابنه وسعودو يا الله سعودو الكريم وسعودو وسعودو الكريم وحنا سعودو الموسي. marka labaad waxaan saddexaad waxaan salaamayaa agaasimayaasha gudaha wasaaradaha kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland wala saabka gobolka Sanaag xildhibaanada qaranka xildhibaanada deegaanka martisharafta kale ee soo qayb gashay xafladda qiimaha iyo qaayaha badan dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan aad u jecelahay inaan sidii wanaagsan oo niyadsan oo qalbi wanaagsan oo qalbi furan inaad ugu soo dhawaataan degmada Luqaya oo socod dheer maanta u marteen halkaasoo iyadoo midnimada u tahay haweenka iyo dhalinyarada iyo odayaasha ay u taagnaayeen inay idinkeeda soo dhaweeyaan bacadka waxaa leeyahay soo dhaweeyaan madaxweyne. waxaa ina si wanaaga goobtan maanta aan taaganahay madaxweynuhu xariga ka jaray in sanadkii hore bishii labaad aan halkani nasiib u yeeshay inaan dhagax dhigo maantana madaxweynuhu xariga ka jaray iyadoo shaqaynaysa. waxaan aad iyo aad farxad iigu ah inaan halkan hambalyo uga diro dhalinyaradii qurba joogta ahayd
مشروع عني كالوميس قال بيا سيفود كمباني حنتدور انت علي مادين عند بدنا شغالين هاي سيكيس لما لا يوجد جروبين ما كان هاي مشروع فرمانات كصنيان وصدقوا بيدن كوبا يقول فايديان وحنا يا هذه بدنا سنتين تدمروا إذا ما حوينا دوبتين ما تايم تاجنا هاي waxay degmada Luqayaad u tahay goobaha dawladda waxa shaqada ka helaya dad badan oo gaaraya ilaa 60 qoys markii ugu horeysay xariga shirkada shaqada ka helaya oo ka shaqeynaya shirkada gudaheega iyo kuwa isticmaalaya dawladda waxaana rajeynayaa inay noqoto goobta ugu weyn ee wax soo saarka badda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waayo kalluumaysato badan oo dalbariga jirta kalluunka maanta waxay ku soo wareegayaan inay halkan keenaan kalluunka ka iibiyaan inta haddaan ka gudbinayna madaxweyne degmada xaaladeeda nabadgelyada u fiican tahay wax dhibaatooyin oo ka jira ama jirto inkastoo ciidanka boolisku aad loogu yaryahay wax gaadiidana uma haysan haddana dadku iyagaa isxilqaamoha nabadgelyadooda ilaashada aad bayna u wanaagsan yihiin حالات عاطمات كده جملة تنتهي وحن صنعت كده ولا تنتسفودي كي وحن تهين هذا بيجي بيقول على رأي وطلع مشاريع وعاطمات تغني مثل لكن الحمد لله رب العالمين سنة كان مشروع ونحسن بعض الشقية والشقارة بدل نقاطين تتنسي على الورشقين يقول كل هذه أجوبي كل سكينة فقالي يو سواء كي بديو دباو في الوبين waxaa kaloo degmada ay nasiib u yeelatay inay maalintii xilka lagu wareejinayay degmada Luqayaad islaanta hooyadee haddaasi ku koolata 3 maalmood ama 4 maalmood baa loo raadin jiray baabuur shiraad oo ama loo jiray noolkii qaarkoodna intaasay ku dhimi jireen laakiin waxaan maanta nasiib wanaag sheeganaynaa inay degmada Luqayaad leedahay 2 ambalaas oo جمهورية المدينة كاتهاي دولة المدينة كاتهاي منها واحد بحصي جمهورية دجمة الوقايات قربها الجولة أنا هذه الأشياء هاي أنا دحالي مرة أفراد نكسور لوية ما تكون موجود مرتين دجمة الوقايات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku soo dhaweynayaa maareeyaha shirkadda Luqayaad Seafood Xasan Yuusuf Wadaad suu naga soo wadaxan kooban السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة Luqayaad Seafood وحا فكرة الوجودة التي لو في القرون توصل صحة يقدر يروح الصبر صحة. يا الله سبحانه وتعالى أنا أصحاب كمية وعشرين ما تروح حتى توقف ما تريد ولا شيء إلا وحياة بس إنا نبدأ عطلنا قاعدين كتير تكلمنا ليه شغلات كتير تا إنا تدخل أول شغل واحد كلام على جعلين كنا تدخل القبر منافعات الخيرات كل وهي هذه شيء بعهين كل شيء بعهين هذا بيجي واحد بعهين إذا توصل إلى المواريث واحد إلى هاي كل جاري ومن كلام بعهين إلى رسي كلام بعهين إلى كوسي ولا تقول يسويه كاس نقول كل خير بنتهي واحد كان يبغى مرة أيوة أنت بقول كان فقط بنتهي أنت بني الرحلة واحد جعلنا ما تصير بيقولوا أسوسية إما أنت 6 ساعة نحن وش ده صوت أنا بقول حاجة أنا بقول يعني وش الشيء يعني 6
suuqayna ilaa boqolyo konton qof ay ka faa'iidaystaan shirkadaas shirkadooda maanta waa kow waa bila weeyaan saan sheegnay ilaa iyo bar baan shaqeynay hadda maanta waxa ilaa maanta ay shirkada dadka reer waxay soo qabtaan ilaa 20 kiilo wax gaari soo qabtaan أنا هذا الوقت صار كل شيء من ما تروح لسه هيبتا طوال أو هيبتا لونه بقوليه حاجة ما تنفعله وحنا بنلبس جونا أدي لا نفس حق قولي توجيه ويقول له حاجة الواحد بقول له حاجة اللي بيقرأ يعني رقم هي أو من أصلي أصلا يكون هو الواحد فوق وحتى جونا أدي لا نفس حق والشركة الكيمياء الروسية وحا تصنع ده إنها قصة منه كمان كيف لو سمعيه وإنه كل استعمال نوع هذا سعر أفريقيا وهذا الدين ويا كمان كيف أهجتني وكان صدوا كلاوين روس عندنا أدية إنه في الصحة وحاس ما كنتش لا كان لا يمر وحاطات موجة إنها تحدث الحاجة تكنولوجيا جارسية إلى إبرك أفضل بقول كنت هوس ولا لا سكروا كل وقت يبي كرو بدو سنة يحضرون أنا هذا السيد اللي ما حكى على هذا يقول أنا هو وزارة الكنولوجيا وزير كذا وأنتي الهوش كتير سيفي أنا قلت وإحنا بجينا إنه سيسع العلاقات له إنه المراقبة بتاع واحد كريان إنه أكتر وإحنا جعلنا فكرة بالجمهور نور إحنا كريان 7 سنوات قبل وشيء سنة بعد ما جايش يعني بدأ وهو أجد هذه أفري وده أفري وأهري حكي ولا كل فيه بني عطحة أنا قلت طلاب يدرس أنا واحد علينا سير النوع الدين لا نقص واحد على طريقة كلها نوع أيامتي أنا بسمي سنة كوني إلى ما نأتي بلانسي الجو ده الوقتي فكر حكت كمان بشو فكان يجمعوا سير نوري حسين واحد علينا كلها مشروعا يبلغ يسير إلى ما تريد هذا هي مش من الرياض الكلمة وسير يقولون سووا ويسكوا ويتصلوا وعشان هذا الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نحن نقول اليوم وطبعا نلوك بوتا سلام يا أبو طارق إياهم ليبري وذكرني أي كل سوء يوم بالوقت كثير أو قالوا نحن في وقف السلام له لكن بسوء جاني إليه أنت ما راك صوت عليه لكن بدون هاي من ضمن الواحد اللي جالسين نساء مدحوينها الجمهورية بالسومالي لان يا جدنا جالسين نساء وهكذا وأن ميديا وروه ويني هي أبعاد أن وروه ويني وغلاها بسامي لكن صبحي عن هاللون وأنا جبنا السوري هاي واحد لقى جالسين نساء حبريو وراها كونتنا متكردينتا كل سنة وقت جيت ورشنا سيجارة هنبريه لو ما جالسين ولا كونتنا وعقبت الدولة إنه هذا عدا نكدر يسنا تيرينا ونكدا وانا معلنا نكنا هاي يدنا نكون حبرينا كسر دول وهيا وجمهورية الصومال لا أهنا مال هذه السيجارة هو كسر دول ما نحن نقولين dadku waxay soo yar fareen aanan ku sheegin waxaan weydiinaya aba xukuumadda baan kula talin lahaa in la sameeyo fiican
قيمين لو سميه بالمونيكا دقمدين محافظ بدن ودقمدين معارض بدن ده تشكيل ولا يوسف إلى الطويات كلا وهاي واحد ويوم يقول لها إنك عرض المحافظ بالمونيكا هاي ويوم يقول لها أبوه هو الكنيسة هو دبعتنا برلة أما هذا يجي ربشنا برلة أيوم هو حربية وبهلاي ككا موسى والنمو وضع سنة هو سكرا وكما هيا وياها هي تسلموني أمرت برلة أنا على كده يسلم على سوريا قالوا قال ما تأثر لا قال وحولي حاجة أمني جبلها أمني جبلها والرئيس ونكون عملي وكل سبب المثال أي سيدي مباراه تبي عندي تاي أتي غير تاي سيدي ولي مباراه تاي مالتي maalintii aan ku dooranay iyo maalintii kale noo timiday iyo maalintii kale noo timiday intaba waa ku sheegnay inta waliba waa suugaynaa doorashadiina way dhowdahay ilaa hore noogu fuusaan jecel aad iyo madaxweynuhuba لكن هو المدلالو هذا شعب درالو هيا لا بديله الجملة والمدلالو أرجع واحد مقدس الله إسبيتال هيا مقدس الله هذا مقدس الله لوان قرابيني وقرب ما تكمل قريمته دولة واحد كسوينا الحكومة هذه كسوينا دكتور هذه ما كسوينا كل شغلها قربا وما كانوا يقولون هذا السلام عليكم ورحمة الله أبريد أنا نقول بقولي قرقة يقوليه بوسطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد المهدي على الشارع سنة وعاشر الويلة يركب الوقع قابل مرضى سلامة وسيلة رجعت بياشا ليت بارتين ciidamada waa salaamatihiin waxa weeye mashruuca maanta xafladda xariga aad ka goysanayo timiday kolley tii dhaqaalada ugu horeysa bay hortayda la sheegay inta qoysee maanta oo gudoomiyaha degmada sheegay inta qoysee maanta furbaara dhibaatadii kala furata ciidaasi ka badanta aniga ninbaa dhawaafaya labaatana saaco baddaa maayna badiga u diiday بدأ يوم بالبديوتي كل أغنياء دواقي كذا على ولا حري كذا هل كان حفيظ كذا جوبي كذا لكن كل ما تيجي أسمع كذا وفي عيا يشتري يكيس يوم وهوين أنت صوت بقى بسيط وارو بعض القيادات بدأ لما حريت هذا جاي يوم السنة يوم وجالس بنياشة أنت بوار السلام إذا صور دوانا حين بلا خير ما نوكيتين ونمد يعانا السلام عليكم قبل رؤوس شعرنا هذا waxaan ku soo dhaweynay mid kamid ah dhalinyarada soo jeeday degmadan Faraas Diri Yusuf oo ka wakiila hay'adda loo yaqaano SD iyagoo aasasan Soomaaliya National Railway oo informa ku abuko mashaariic kalluumaysi aan ka fidiray degmada Kafriya barwaaqo kooban ay naga siiyeen waxay مدن مدحينه aad iyo aad baan ku salaamay degmadana runtii madaxda iyo fusuulisay waxa kala salaamaya wasiirka kalluumaysiga oo wax badan oo shaqeyno waxa kala salaamaya qaybaha kala duwan ee dowladda iyo golaha maxalliga iyo wakiilada mataliya iyo golaha deegaanka inta ka bacdi Sirik Samasonis Samasonis hay'ad Somaliland ka tirsan kana dhisan dalka Ingiriiska iyo Somaliland Sirikna waa hay'ad xawiyaan oo Ingiriisa runtii waa soo marnay oo waxaan ugu soo booqanay xaruntaada annagu markaa waxaan kala shaqeynaynaa wasaaradda kalluumaysiga oo runtii had iyo jeer
aanu wada joogno in aanu qayb ka qaadano kobaca ama horumarinta kalluumaysiga deegaanada wixii ka soo xiga balbala galbeedka ka soo xiga muddo 8 bilood ayaanu ku soo noqonaynay Luqaya Sayda Bullaxaar Tukushi iyo Looyacade daraasadu gabadha maraysa imaka reelo hay'adda baahidoodu waa sheegteen waxaana u rajaynaynaa insha Allah ta'ala labada sano soo socota wax muuqda oo la taabto in halkan aan ka qabanno haddii ilaahay ilaalo ayaan insha Allah ta'ala ku soo gudbina wasaaradda waa shaqaynaa hadii jiraan oo joogna warbixinaan oo gudbina aad iyo aad baan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ومسيرة الرأس الجبهة وعلى يري أجا اسمها وسالة المحندية تورطة سبيل أحمد جديد طوعة مدار القلم في كسر جديد المدى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيد تمريض شمالنا وسيك وسالة كومالسية أجا اسمها كود وسالة قرشينتا أجا اسمها كود وسالة تمرتا اللي بعمل القراها وكيلنا لتلياش مدوينها مدويها قولك سنن مدوينها ميل وهيار مرتي شرفتا إذا مر قرنك كما أنتم وحفظ السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا المهري ممكن واحد هل كان واحد قريان يا مشروعا بلارا يا أيمان كشرين ذكر بفتوكا كسو جيدا انتو ميل وهيار وما أنت إنتنا يسوية inteena halka joogta isugu yeeray madaxdii qaranka madaxweynihii iyo madaxweyne isugu keen yeeray abuurayna shaqo abuuris oo maanta ka bilaabay inay 6 qof oo reer Luqaya ay nin walba si uga shaqeeyo kana soo gasho dhaqaale ay ku noolaadaan carruurtoodana ay kaga bixiyaan waxbarashada reer Luqaya kelmadaan ka ay waxay yahay waanu leeyahay deegaanka Luqaya deegaanka leeyahay حالا إلا شري بان عليه حدبان كور ويسرين وجالي قوحاس مبوح جرا وقتيرا جالي طوان شنية طوان نف وحاسا كله قالي ورجي وجاله بطل يبغونك يكون قاصر يفشل سنة يحصل وقتيرا وحكلي أن كل ذلك كرنا هل بياض هذا الله بيا وإن كلو ما يسمى بدأ وين يعني كل ما نقول كلو نموالبا كل حوالها عبارة ما يسمى لكن كلو قوار مرة mar haddaanu kalluunka abaar lahayn geeliinay waxay naga dhamaaday waxaa habboon halaha aan sii haysano in nin walba intuu dib u soo iibiyo barhkoodna la haro malihi aan wada dhammayna geela dabadeedna badda uu soo geliyo ilmihiina wax buu ku baranayaa dhaqaalena waad ka helaysaa nafaqadii carruurta iyo hooyooyinkana kor bay u soo qaadayaan intaasaan ku dhiirin waxaan kaloo hambalyanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo culayska soo saaray intaa leeg safarka u soo galay si uu u tuso waxtarka uu leeyahay mashruucani iyo horumarinta uu samaynayo guud ahaan Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal iyo dadka deegaanada Luqaya iyo Sayda iyo inta xeebaha ku beersan waa naadsantiin أجا وسالة قرشينتا مدحينك جهود سوالان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل شيء وسير وزارة كلومسيكا أجاسيمية شغل اللي باندا ورسالك سلل تمان مشروع طارم كسبوتي مدعي رمانتين بعيد مدى قرنك رمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxaan maanta aad ugu faraxsanahay waxaad badanay in maanta idinka soo qayb galo oo halkan maanta aynu madaxweyne noo furo mashruucan ay wadaan kalluumaysigii ay wadaan in maanta halkan aan ku sugno aad baan ugu faraxsanahay كوسائل قرشين أهان مسألة قرشين تقرب وحي لا هاي قرشين قرن بيلا هاي يمكن وحي لا هاي قرن بيلا هاي لو وحي أي شيء من الحاجات شيء من كم عدالها ومركا يمكن الحوشيو رايح فسفر بين الحوشيو سمكها على سوق لقاها مقلو وقتبتك بدأ يبيرها ولقاها مقلو أي تاجرسات هاي وعلى سمي ميرس سيدات
oo la yidhaahdo kooxda ama kooxda kobaca dhaqaalaha ee wax soo saarka la yidhaahdo oo kalluumaysiga beeraha iyo xooluhu ay ugu mudan yihiin mudnaanta koowaad ba la siiyey kuwaana sidoo kale waxa weeyaan kalluumaysigu waxa ugu muhiimsan hadda la rabo in xoogga la saaro dhammaantiin baynan xoogga saarno waynu ognahay reer lugayaado waddani kalluun wixii lagala soo bixi jiray waynu ogeyn marka kalluunka laga soo saaro haddii meel la geeyey aan la haynin faa'iida kuu jirto shirkaddana waxay idiin faa'iidaynaysaa wax badan oo adigu hadda uga baahnaydeen bay idiin faa'iidaynaysaa idinkana waxaa laydinka rabaa dadaal la mida inaad la timaadaan oo aad badda ka faa'iidaysataan oo maanta jaaniska aad haysaan ma hayaan dadka buurleyda ku noole ma hayaan waa jaanis halka yaalla jaaniska inaad ku faa'iidaystaan baan jecelahay aad iyo aad buu mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mid ka mid ah dhallinyarta kalluumaysatada degmada hadda iyo ka hor maxay faa'iideen maxaad qaliil oo kooban dareenkooda loo cabay ugu dhowrcali بسم الله الرحمن الرحيم أبو حق السلام يا مدعوين المشعرين كجمهورية الصومالية عبد الرحمن السيعي سفر كبير وصول لك من الغاية إيو إنها أبامين يجي وسنكر سلام إيو وحمد سينا حمري هذه أنك أعطو سيدي كوراتا أنا هاي يحط الساعات نروح حسا أنا هاي هذه أنك ورفعيو وهر تروح أنا هاي هاتبو غيو بيو بسفري إمكا سيروح أنا هاي تبسا خيسا لغيري إن أي شيء سكران وحنا صوتي سكران وحنا أجيب سكران أصلا سكران تأثير النوع ضيسي وأنا هيجا وخذوتا النوع ضيسي أكاد سيارة هو اللي نقول سي وحصوصات في كلام في أود أن أنا هاي مجازية يعني شغل سنة وحنا نطبق وحنا قبلنا تأثير النوع الله عندنا بيت maanta ilaa boqol iyo konton ilaa boqol dhalinyada ayaa badda ka shaqaysata u soo qolaada markii horena xagga hoosooda inaan usoo jeesan jirin iminkase xagga in badda usoo shaqo tagta oo ka shaqaysata taasina waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay iyo intii hawshaasi geysatay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqay inta kale waxa aan fariin وديبرينا مدحونا كحجين كجمهورية الصومالية عبد الرحمن السيعي هي وسيلة خنقة سعانة وسيلة كالوبيستيكا أي لقد عيصوها شقيتا مقاموا نهاية كالوبيستيكو وحانا لين مدنا مدحونا هي وسيلة وحانا أنفرين تديبرينا قاديد كأخو شقيسنا وقاديد هي وقطة الحيانا والله يقالنا وزيد إيو حيث متلاكنا قاديد كاسي بركود والله دوتين هذا جدّ كيسة إيوه مع هذه أول بطل المقبل سقة سلسلة هي قانون وحلا صبحنا طبيعي وحنا قاعدين كتير هذا حاصل نقول بسوا فكسير ويدارو نقول سوحدان وأنا بتقول حتى أن سكتنا الله شرّا لماذا أبغى بحول سنو سنو برضو مرة حتى بكرة دوا نجا هذا كاس وكذا كذي حاسين وحنا كعصرنا في العيلة إيوه وسجل صعيد وسيم كلام يسمع هي هاي اللغو أو قران إنسان هاي اللغو فعلوا قطع سي أن وحي يعطيه مدعوين كحجين كجمهورية الصومالية يصير كوزارة كالوبيستيكا الديوان من الحركة رسميات شهود مسؤولين كالديوان الحركة الديوان غير وهي دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مسير كي يجيب الجورو ويصور كهد الجورو وضد رسمي قاعد كتشيل الجورو أروح الخمائن الفوق كحضر وهل كي يكشفه ما أنت لقى بلعبه باب كجمهورية الصوماليلاند وهيا وهي كجيل دون تانو على مدين دونا حرمها لقى هرو حرم إذا يتهي لقى هرو أجابك عصرك اللي بدر يروح كلونك أنا محمد دلالة موازنين كغير ربحية هل كان شوية دلالة دستي حرمتان أنت أنا وسالة الشومي وحيابها نلو يديه وحكم ذا هيا كلونك سيدي كورنا وقادر أو نقول لها قبلتيان يبرق اليال ما أنت وحا نسيب ولك حرمتان يالا برق اليال هي حرمتي لكو قبلتيان يكلونك
waxaa suuragal noqon doonta marka nala soo weydiiyo kalluun inaanu ugu horraysiin doono inaanu nidhaahno wuxuu yaallaa luqaya kalluunka loo baahan yahay wasaarad ahaan waxaanu diyaar u nahay muwaadiniinta dadaashay ee xarunta sameeyey inaanu la shaqayno si daacadnimoa inaanu u fududayno wax kastoo adeegoo ay nooga baahdaan labaad waxa weeye si halka hore looga sheegay mashaariic badan oo kale oo kaami doono xaruntan ayaa u soo socda ayaa kuwaasina insha allahu tacaala marka lagu daro waxay noqon doontaa xarunta lughaya meelaha ugu dhow ee kalluun looga dhoofiyo waddamada deriska iyo suuqyada dalka gudihiisaba sidaas darteed waxaan maanta ugu mahadnaqaynaa hambalyo ugu diraynaa reer lughaya iyo mas-uuliyiintooda dadaalay ee xaruntan sameeyey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu la taliyaha madaxweynaha gobolada bariga sahal maxamed jaamac hal yaro kooban بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أحسان إلى Somalia وقت الوضعية يوكيدنا لنسك لبنانها أقاسمياشا برسام كبرون كمايركا وعن آدية وصلاليا الوينها حيث الكل بعد خصوصا بعد سلوين تأويل وعن لها آدية ما سجلين وروحات المجتين جعيل مدحدنا أيام المجتين ما تنفين ما مركز كله وعن إيجانا مرة علمية للإنتا وبجوجا عند ذا الشيء أوتستي تذكرها إني تذكر رسول الكرام كبير سنة أي تذكر كمان كرتون الكرام كعنش شيء إيجانا أبيات مرة علمية وما سجل halka kuwa idinka dambeeyana tustaan u muuqataan tusaale ayaa usi goynaya nabadka waxaan reer awdal ama gobolka awda iyo sele laftaanaha waxaan maanta halkan uga jeedinayaa fardiin waxaan leeyahay reer awdal waxaa looga bartay mashaariic sidoo kale waxaa looga bartay wadooyin الشباب إلى مكة لم تستطيعوا وتأتيكم كل مرة يبلغي وإلى يدعون وعليه كيف تابعت فرشدة أي وقال وراء سوريا سوريا فرشدة هذه كنت نقول عي سوريا إليها سوريا وعي ماشي يقول الرئيسي جامعة رئاسة سوريا والمركة أيضا أدواء الملكة وحرمتك iyo waxqabadka waxa la yiri geeru anuu reebaadiyahay hadduu xagga hore ku yeesho habeen waa geedu la soo baay hadduu xagga dambe ku leeyahayna waa tiisi laaki jiray maanta waxaan leeyahay reer awdalo xaggii hore ayaad habeen ku yeelateenoo meelahaasa waxaa la sheegayaa inaad qori qaadateen qoriga dee annagaa naga waraysan lahayd qoladeeda barigoo hadduu wax ka leeyahay annagaa nagu adkanaayeen halkastana waxaan leeyahay wadiwayo dalka waxay ku deganahay guud ahaan dee 3 qolo markii dee afrika joognaayo qabiil dee kala qarsan meydeen ciisiya galkiisa waa meeshooda markaysaan halkaa dhexe joogaan laakiin xaggaasu degan yahay waxaa la yidhahda qolada saaqsideed u garatay waa wadnimankaas ka doortaa qolada reer barnaamijkay la soo baxeen intoodii ka waaran waa kuwa maqan waxaa meesha lagu wada deganaa waa deganaanshihiinna iyo nabadda oo aad ka shaqaysaan marka adinkuna haddaad dee tirahdaan wadaadnimadii ku wadi waaye banaan ka wardoona waalida sidee la yeelaya soo dhankasto waalan waayo waxaan leeyahay walaalayaal goobku waa min waxaan ku soo koobayaa walaalaaga reer awdal hoos ayaan ula talinayaayo dee dadku sisiibu isugu xiran yahay inkastoo qolo idinka mida ka soo horjeedo suboodadii laakiin waa teen ku caarmaalay handhicinina waxaan idin leeyahay talow keenaad maanta dib u noqon horay noo sii wada farageel jirana hoos baa loo xalaaye eenu hoos u halan ruuxiina kan wasalaamu calaykum waraxmatullahi
hogaaminayo dhammaan dadweynaha iyo ciyaarta reer haya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بعد السلام عليكم وحضنا إلى ما أنت نجلس وقيم كشوا حفلتنا إن كنا أقرأ مشروع كلوميسيا وإسراء مسكح ضدي مال كل جديد اللي يرى بربجوجا وغير هي وكنت أنا هذه أقوم عندنا بينه بعد حضنا على ما أنت نجلس وقيم كشوا مشروع ما أنت كلوجا runtii anigu marar badan baan halka soo maray markii horeysay xafiiska igu yimaadeen daartan yar ay dhisayeen aan warka ugu yimi aad baan la yaabana waxaas lahaa iska niyoonayaan cidina hadeer kalluun mashruuc noocaasa gurhaye kama samayn karto koluu meelaha laami galo iyo berbere iyo dadku waxay samaynayeen in meelahaas kaga biiraan baan is oran jiray laakiin runtii waxaa maanta muuqata inay ka mir dhaliyeen oo hawshii ay maalintii bilaabeen aan la yaabanayn wasaarad ahaan oo islahayn kalluumaysigu waa hawl badan yahay barafkiisa mashaariicda la keenay konteyneradaas lagu keenay qalabka sida lagu keenay weliba lagu hayo madaxweyne waad ogtahay waddada loo soo marayo iyo dhibaatada iyo rafaadka lagu soo gaaro halkan lagu yimaado in mashruuc noocaas oo kale laga hirgeliyo waa wax maaragtay dadnimada aad uga sii fara badan weeye oo aan ugu mahadnaqayno oo aan ugu ducaynayno oo aan ku ammaanayno raggaas dhalinyarada oo maalkoodii iyo maskaxdoodii iyo murkoodii halkaa geliyey runtii mashruucan markii hore berbera marka laga soo bilaabo ilaa xuduudka laga gudbo jabuuti la tago meel baraf laga helo ama konteyner qaboojiya ay yaallo ma jiri jirin berbera laga soo bixi jiray jabuuti baa ku geli jiray intaa 300 kilomitir iyo siyaadadaas waxay ahayd meel aan cidina kalluun ka soo qabsan karin qofka kalluunka soo qabsadaana uusan helayn jaanis uu ku maaragtay ku qaboojisto ama barafka u soo qaato waynu ognahay magaalada barafka waxaa looga keeni jiray dadka ka kalluumaysanaya yaman bay kala iman jireen ama jabuuti labadaa meelood baa lagala iman jiray maanta alxamdulilah wey kalluumaystada ka imanaysay berbera iyo kuwii saynac ka imanayay iyo inta u dhaxaysa intii joogtayba maanta luqaya xarun ah kalluunka iyada ay soo furayaan barafka iyada ka qaadanayaan magaaladii dad yar iyo maaragta daqaaq yar baa ka jira nolol fiican bay geliyeen sidii hadda warbixinta laynoo ku sheegayay waxaan iyaga marka sii oran lahaa mudane madaxweyne waqti dheer baa idinka horeeya waa bilow sanadkanu caqabado badan buu kalluumaysigu leeyahay waxaa la rabaa in aad u sabirtaan lacagtiinu sida karaatiinta iyo baamushtar kale ma hore u soo bixi mayso laakiin niyaddii iyo wanaaggii iyo geesinimadii aad ku gasheen baa rabnaa inaad sii wadaan annaguna ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan mar walba garabkiina ayaan taaganahay haddii alla idmo kale mudane madaxweyne waxaa halkan aan filaynaa haddii alla idmo waxaan horey u keennay oo marar badan aan halka soo marinay oo sarfey badan ku sameeyey oo aan u soo qoondaynay ka wasaarad ahaan mashruuc yurubiya yuriyinku inaga maalgelinayo in laga sameeyo jadkii yaraa oo dooyinku xiran lahaayeen in laga sameeyo barafka iyo qaboojiyaasha wixii ka dhiman lagu soo qaabo in xafiisyadii wasaaradda iyo maaragtay kalluumaysiga halkan laga sameeyo mashruuc noocaas oo aad fara badan in laga sameeyo xarun tababar ayaan halkan u qorshaynay ilaahay baa rajeynaya inay asayna ku bilaabato waa waxaynu bini aadan ka sugayno laakiin heshiiska u dambeeyey waan wada saxiixnay waxaana rajaynaynaa inuu bilaabo ilaahay dankiis muddo dheer baynu daba joogna mashruucaas waana noo nasiib wanaag maanta annagoo mashruucay hortiis joogna in madaxweynuhu inoo yimaado ina kala soo qayb galo mudane madaxweyne innaga dowlad ahaan qodobka mar walba annagu aan soo gudbino ka xukumaysa cabashadiisa maantana aan rabo inaan maaragtay halkan kugu soo gudbiyo kalluunka halkaa ku jira dadkeenna uu ka badan yahay oo kalluunka la soo qaban doono suuq dabadeed baynu u baahannahay suuq dabadeedna ilaa hadda ma hayno jabuuti baa wax yarka geeya yamanna way xirantay oo dagaaladii bayna ka xiray suuqaynu ku weyn waynu heli karnaa waa etoobiya innaga waa ogtahay madaxweyne waxaa laynoo keenaa maalintii 300-400 oo gaari
oo sulsidaba inoo yimaada oo lacagteena aynu ku bedelana waxaan doonaynaa madaxweyne in dawlad ahaan ay dadaal saaro oo aan kaa codsanaynaa sidii kalluunkeennaas iyaga caafimaadku ay u gaarsiin lahayn oo inaguna lacag adag inoo ka soo keli lahayn lacagteena inflation baa ku dhacay baa la yidhi dadkeenni waa shaqo la'aan haddii kalluunka 10 tan ah oo maanta aynu konteynerkaas ku aragnay uu berriba Itoobiya u gudbo oo la soo iibiyo saa dambena 10 tan baa ku jira waa 3-4 casho kadib 10 tan waa soo korsanaysaa laakiin haddii kaas sii oraado oo suuq waayo kaa kale oo raashka ku keeni lahaan waxba keeni maayo marka inaynu qaran ahaan waa dhaqaalaha keliya aynu haysanno oo ku xoog weyn waana ka doonay raacidda waana ka doonay muxuu ahaay dhulka hoostiisa inaynu ka qodno waana ka doonay inaynu ajnabi ugu yeerano loo qoda oo inaynu ka doonay muxuu ahaay qalab technical oo maaragtay bahalkii hawl badan kalluunka badda ku jira si aynu la soo bixi lahayn waa hawl qarankeena aad iyo aad uguna muhiima aan rajaynayno inaynu mustaqbalka dhow horumar ka gaari doono runtii ruhaya waa bartamaha markii galbeed la yidhaahdo berbera ilaa loo yacdo aad baan ugu dadaalnay inaan mashaariic badan ka horgelinno ilaahay idankiisa dhallinyaradaas ee u bilowday ayaan wasaarad ahaana wax badan ka qaban doonaa aad iyo aad baan marlabaad ugu mahadnaqaya dhallinyarada iyo dadweynaha magaaladaba dadaal madaxweyne ku soo dhowow kelmadaadii aad iyo aad baan ugu soo dhowow maanta farxad weyn bay tahay maanta inaan ku soo qayb galo xafladan lagu dacfurayo shirkadda Ruhaya Seafood oo ay soo maalgeliyeen dhalinyarta la sheegay gurmuddo badan Ruhaya oo runtii waxay farxad gaar ah u tahay maanta waa wax noloshii ummaddeena ku noolayd wax badan ka bedelaysa inaanu kula waxweyn xatuu wanaagsan wixii ummadda lagu nooleynayo yaa u qeybano inaanu wato Ruhaya waa degmo weyn baahayd qadiimiya waxaa maanta duugaca u inta badan oo wadala-aanta iyo mawqa ay ku taallo in badan oo dee aan tabayna oo dadkeeda lahayn dib looga dhacsan yihiin maaragtay qabtaana ragga maanta halkan sameeyey horteelka ka noqdeenay degmadu way ku kordhiyaan waana lagu dayn doonaa insha allah oo in badan oo wax waxaa yar ka badan oo qaban karaa haddii la isku tashado innaguna waxaa loo baahan yahay sidaa maanta ay nabadaas loo soo dhiiradeen in badan oo kale soo dhiirato oo ay maaragta dadka ku soo kordhiso waxaa ugu yar maanta haween yaanaku hadduu shaqo wax qabo oo maaragtay ummadda ku jiroobi way ka go-an tahay وقرأ وحقق ذلك وسمته قرأت الصعب الحين بسوق به وطلع ربع لو يعيو أو يشيو مدرسة فتحيه ويو العيسان على عدة جوتها الرجل عادي يقول له ضعف يعني طالب حاجة جوته هي النهارده معناتها يقول على الله يسمع السنة وحاول واحد سنين ضرب سكوت تجي أو سكوت ونشيده أو سكوت عرارة أو معناتها قرأ قبيان هي كل اللي هي الهين مرة هو طبعا ونقول لله لو على فرق واحد لا هي كيسة لا سامع وحش ويكون هاي ساعة وترى على وش نسكت طعم وتفكي مودة هو كذي الناس ما لنا كان إلى غيرات كاملة إلى على وش نسكت طعم ضد هلا تيم وسكرين إلى على وش نسكت طعم تاسع كذا سيداي محمد محمد عبد الله يسوع بيجيو أساعد النور يسوع بحوله عروش ولا يسوع فيها ممكن في عروش أساعد ولا يسوع بيجيو وحضر وقصيصة لكن واحد مالتي أروح شيء لا تسرقه بحي إسلام الشعب أنت الجوية شراب كل استوكيدي يو على الكوال كل فلو
maaragtay luqeeyo oo saa kala wahayn ilaahay maanta dhigaastay daama madaxeena maantay waa alxamdulilah booliskii may waxay maantana waa meydeen waa shacabka sabooyin gudahood iyada waxaa ku soo dhaqaajinay hormar haddii wax laga dhowr ummadda ku dhowrsato nin weliba soo codleynaya inuu wayaana gobola somaliland waxaa maqli jira wey ceelaayi reelaas qoraya iyo ku dhowrsado bilaadikad taa ma kusoo dhaqaaqahayd odayaashaada maanta aruuta ka midahayoo maaragtay odayaatiyaxda mujaahidiinta ugu dhawaaji odayaatiya ka midahayo caaqimaha maanta way noolyihiin biyaadanku markuu wax bilaabo bil gudaheeda magaalo isu bedeshay magaaladii maanta dad koob shacab biyasa lagu cadeeyay beriis cad baa lagu cunayay waala bareeray inay jabhadii askarkaaga deganeedada ina beriiska cad oo sababta ayaa dadka u aqoonoo bil dabadeed waxay noqotay arigii iyo loodii iyo iskalagaloweydo 500 tan doostaaga soo joojiyey oo xoolay kana ka dejiyey reerku habeen haddii la rabo tikad male loo sameyn karo waxaa noloshu meel ma gaadho laakiin qofku waa inuu kolba wixii jiray wax ka bedeli karo oo ka qaban kare uu sameeyo wada aad baa loo dhiirigelinayaa waana kusoo dhawaaday intaa waxaa qalbiga laga qabanay haddaan dowladda nahay cid kasta oo marka kusoo kordhiyeysa maaha qofku uu fikiro inuu isagu waxeelo mararka qaarkood qof maalgelinta uu sameynayo waa inuu fikiraa in dadkiis ku noqonayo waxuu fikiray nabaas maanta waxaan ogahay sanad iyo 2 sano waxaa laga yaaba inay xog heli doono lacagtooda laakiinse waxuu fikiray horta in ummadooda wax ku baraan wixii ay haysteen ilaalinkuna waxaa isku geegeeyo wax noqo qof keliya maanta lacagtaa u sheegay maarayuhu boqol hadduu qof keliya maacayaba kama waqooneen laakiin toban qofood labaad isu geeyey sheekhu isu geeyey waxay noqotay inay wax noqoto oo ay wax tarto dadkiina ku tarto iyagana mustaqbalka ay u dhawaadeegaan iyo gaari dooneen bay faa'iido helaan ay helaan marka qofku soo kala midigi dantiisoo kale uu ka fikiro dadka ummadda iyo cidda uu la noolyahay si wax u qaban karo maskiro mid walba gaarnada xalay gudaha reer somaliland gaarada reer awdal waxaa leeyahay hadalka ee loo fadhiyo waxaa loo jeedaa hadal yar iyo hawl badan loo jeedo in waxa loo daayaa dhaqanka loo hadal badan iyo hawl halkii hawl ka shaqeynaya afurbaasoo jaalo loo fadhiya afurbaasoo website baa loo fadhiya ay iyo daayo waxaan loo wadaa oo reer somaliland waxaa ka qorno ama iyo hadalka yarayno hawshana aqbalina si loo waxaan loo shaqo ka fiican oo u guulo annagu hadaan gaarsiin waxaan yaabna dowladda inuu gaarsiiso cid kastoo wax wanaagsan ama aqoon soo hormaysana waxaan la soo taaganahay inaan wax qabano oo dhiirigelino sababtoo ah xilal leeyahay nolosha tariiqa maanta baa ku sameeyay lixdan qof ama qoys oo ka degan maanta nolol waa muray wax xil dowladdu waxay muujiyo qaybtiisa marka aad iyo aad baa inta kale waxaa leeyahay walaalay shaqada gaarane oo moodeen dib ay isku hayaan oo moodeen waddanka ay wadiyo joogaan dalka iyo dadka ay ma jirto nafsiga maanta inta ay fiiraysa ka baxa nolol baa loo tartaya halka nolosha loo tartayo uma hayo halka nafsiga ma jirin iyo kuwa dib loo qataa ma tarayo laakiinse loo kala waxaa loo kala baraa nolosha lagu diyaaro aad baa shaqtii shaqada runtii وزيادة ومعلوماتي وأنت سمسي وزارة المالية وعشرة فرص سمسي أنت على حال المسؤولين يوم هتجي شهر يوم ما نحن نسوي عشرة فرص سمسي وأنت كده في الجو وتدوري ما جاك ما تعرف ولا تقولي وإحنا جينا السوق ده الهم إن شاء الله أو شيء صار سؤال ضغط بعد كتير سير مسائل حسابهم يقولون إن شاء الله هذا المزيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين marka hore waxaan soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayo oo u soo hawlgalay in ay maanta u furaan
dhalinyarada ama inamada ku dhiiraday inay halkan ka hawlgeliyaan ama ka sameeyaan ama ka furaan mashruuca Lughaya Seafood ee qiimaha badan runtii ah wax lagu farxo dhiirigelinta ummadda u ah mataqaanaa wax soo saarka u ah durba yani ay sheegeen in 60 qof ay shaqo ka heleen oo wax lagu farxo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay dadka kale ee u dhashay deegaanada Awdal iyo Selen oo laba gobol oo mataana ah waxaan leeyahay ku soo dhiirada sida inamadaas ay ku soo dhiiradeen oo ummadiina wax inta u noqda waxaad la timaadaan wax anfaca waxaad la timaadaan wax u tara waxaad ka reebtaan wax kala qaybiya wax kala qoloqoleeya wax kala fanqooqataa ka reeba laakiin la yimaada wax dadka wax u tara ummadda isku keena horumarka ka shaqeeya taas inaad la timaadaan baan soo jeedinay oo jecelahay waanan hambalyaynayaa inamadaas waxaan leeyahay xukuumad iyo shacab la garab galo ummadda hal tuso oo hal baro inay tahay cuntada badda lagala soo baxata ugu qaalisan waxa qiimo weyn leh madaxweyne ku-xigeenka safarka uu soo maray iyadoo lagu jiro waqtigii xagaaga ee cadceedda ahaa halkaas maalin jimco ah u soo boqolay ee maanta u daahfuray runtii mashruuc lagu duceeyay uu noqonayaa waxaan aaminsanahay in sida ugu dhaqsaha badan leh mashruucaasi nimadaas ay uga faa'iidi doonaan ummadana uu waxtar u noqon doono intaas baan ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh marka hore waxaan mahadnaqaynaa inamada dhalinyarada ah ee soo dhiiriday inay dalkooda wax u qabtaan maalintii aan cashuur dhaafka siinaynay anigu waxaan islahaa وروحنا واحد قليل ما هي من ساعة شهورنا وتجي وكملها لكن ما أنت عشورنا فيجي وزارة المالية ده وصوبه مرادل كيسيبان بيشوفنا وحنا أروح فرح سنة مرادل كا أنا المركب هرب كلنا نسمعه والله عرفتني بلا صورة قل ما هينا دقن كشوف وهيصير دوني يوم نقطه إن ما أنت مليه دي عرفتي دي كلهم كيسوق بتنفعون إنه وحتى كلنا ما أنت فري على حين كويك جمهورية السوماليلاند مدن عبد الرحمن إسماعيل سيلعي وفتقيا أنا جوا مملكة كاستم كا سيلعي يلو هيا نا أن جوبشو كاهي وحن أول فرح سنة هينا وحتر كنتي عشورات في وزارة المالية وحن وهم بلين يا ما هاي نمضى هنتيدا فرا بدن بقول يدحدن كنا دوران كدو جلسي أيها وهم بلين وحكلوهم بلين يا قد كيجا والله هيجا غير لوهيا كفايدستي سيدا وناسين وفايزة ونبهنا أنا لا يهاي يوم هدي دتكو أي إسكاشة هم بيقبطان أنت كلا نمغل سين أنت كلا نداون سينا كود ضيدا نمدي ناس السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم مركو هراء وحن هالكن حنبليه وقصو جيدينيا محايدي كوحدة لوغايا سي فود ومانت هالكاسي كسو بندقي محايدي كنعسي جوجا يهرم مركا أي كسميين محايدي دقمة لوغايا مشروعني مهمة دولية هاي صدق براسها بكبشة مدحون كوحيانكي يوفت حل بعنا أجاسميال يا أدو كسوقين قال أو كتوسي مهمة دولية مركا فرين تقولها تندر يوحويان نور أمريكا 1 يوروب أما ريو كي أو بدرر محايدة يوروب أو كسوجي ذا قبل دني 0 مركا وعلى الربع reer Yurub inay iyakuna fadhiga ka kacaano say u bareejeyn lahaayeen Noor America ay mashruucan iyo ku kala ka xiisa badanba ay ku soo kordhiyaan gobolka iyo degmooyinkaba waana aad iyo aad baan inii salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka koowaad halkan waxaan ku soo dhaweynaa wafdiga qiimaha iyo qaayaha leh ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici waxaan leenahay ku soo dhawaada degmadii Lughaya oo aad nooga xarig saraysaan mashruuca seafood company mashruucaasi oo ay iska kaashadeen dhalinyaro qurbi jooga oo ka soo jeeda jaaliyadda degmada Lughaya mashruucaasi oo mashruuc kalluumaysi loona baahnaa run ahaantiina wax weyn ka tari doona shaqo la'aantii baahsanayd ee ka jirtay degmada iyadoo waqti xaadirkan sida ay noo cadeeyeen gudoomiyaha golaha deegaanka iyo iskaashatada kalluumaysiga ay durba ka hawl galeen u dhawaad dad lagu qiyaasi karo ilaa 150 qof ama 60 qoys ay ka hawl galeen
mashruucaasi uu wax weyn ka taray shaqo lahaantii iyo mashruucaasi uu wax weyn ka taraya xagga shaqo abuuristii loogu talagalay in lagula dagaalamo shaqo la'aanta iyo dhalinyarta tahriibaysa ee dalka baxaysa si ay ugu nagaan lahaayeen ay dalkooga iyo badooda u aamini lahayn wax soo saarna uga sameyn lahayn qiimo leh dalkan lagu socday ee dibadaha ee loo dhoofaya waa kan wax qabsaday waxaan kula talin lahaa dhalinyarada tahriibaysa war dalkeena nimca fadhida ka faa'iideysto oo wax soo saarka ka qayb qaata والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. هلكن waxaan ka salaamay dhammaan madaxda iyo dadweynaha reer Lughaya oo bishaara aan leeyahay bishaaro. Maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed weeyi. Mashruuca halkan ka furnay kalluumaysiga waa mashruucii u horeeyay ee kaabaha dhaqaalaha ah ee degmada Lughaya yeelato oo ay sameeyeen aadna aan uga mahadnaqayno dhalinyarta reer Lughaya ee qurba joogga ah. وأرين وي وهردعي هميلدي أن تكسنيني هذا هيدا كرر رهيا وهردعي وي ودقالي وهريي يوحقبتي وهريي هل كان كسمينه وحكوا حق دونا إن شاء الله صدق دقة دكدي لوحيا يكوا حق دونته وندك أوجو بشارين ينيري كوا حق دونته بشاران لنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم halkaan joogaa waa xaruntii Lughaya waxaan la soconay waftigii madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ku yimiday degmada Lughaya taasi oo maanta ku furayay warshad kalluumaysi oo ballaaran oo dadka degmadu iyo dadka gobolkuba ay ka heli doonaan shaqo aad iyo aad u ballaaran ay ka heli doonaan taasoo qurba joog reer Awdal qaybo ka midi ay soo kordhiyeen wax deegaanka faa'iido aad u ballaaran u leh aad baan u faraxsanahay maanta aan kaga soo qayb galay xafladda ballaaran oo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xafladda ugu daafurayay iyo booqasho iyo indhayn oo ku soo mariyay goboladan degmada Lughaya iyo waqooyiga Hargeysa aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku boorinayaa qurba joogta kale ee reer Awdal inay guud ahaan Soomaaliland inay ku daydaan Xasan Yuusuf Wadaad iyo groupka maanta ka furay matqaana Lughaya warshada kalluumaysiga ka furay inay deegaanadooda kale haday kalluumaysi noqoto haday noqoto dhul beereed haday noqoto matqaana agab kale oo beeraha lagu xeeyo haday noqoto warshado kale oo casri oo dadka ka faa'iideystaan ayaabaan iyagana ku boorinayaa warshada kale qurba joog anaguna ka mid ahay